أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى: فصل في بيان عدة الشدات في الفاتحة ومحلها. فصل هذا كان فاصل من ذكر ساره في بيان عدة الشدات شديالك تردو ذا عدين تدو فصل يهي شديالك سو في الفاتحة فاتحة الدحدة كسوغا ومحلها محل الشدات هي شديالك بوس كودا إن العديه أيو فصل يهي. شيخ رحمه الله تعالى ولي وحاو كل حجراء أحكامتي فاتحة وحن هرو سو قادني فاتحة إن إسكالا ده شروط ده شرط كم إذا قفكي كتغنا صلاة دي سيسان عن سحين فصل كان وفصل الحرير للي فاتحة دي وسونا وحكاها لي فاتحة شد ديالك ده شد كم إذا قفكو هدو كتغو إن صلاة دي سيبا يسان عن سحين marka waxaa la cadeynaa shidkaas maxalka uu ku sugan yahay, meelaha la shido iyo meelaha shidku uusan qaban karin oo haddii la shidaba qiradii faatixada aysan ansixaynin. tashdiidaatu alfaatixati faatixada shidadyaalkeedii 14 faatixadu waxay leedahay 14 meelood oo la shido oo shadka mid ka mid ah haddii laga tago faatixadii aysan ansixaynin. 14 uu sheekhu ku cadeeyay wuxuu ku yiri bismillaah fatashdiidu bismillaah shidkeedii fawqa laami laamka korkiisu ahaaday. bismillaah markaad ku dhawaaqaysid laamka allaahi laamka waa inaad shido bismillaah oo waxa weeye yani laamka shad marka lagu leeyahana awal asal ahaan laba laam ay ahaayeen labadii laam la isku shiday walidaalika marka labada laam la isku shadaayo hal mar lagu wada dhawaaqi. shadka macnihiisa waxa weeye hal mar inaad ku dhawaaqdid bismillaah atira bismillaah, laakiin haddii bismillaah atiraahid bismillaah ebro ma ansaxayso. bismillaah shadka macnihiisuna ma aha sida shalaba casharkeena aanu ku soo qaadanay in madaxa aad wax ka shido ama garbahaagu ay nuuxnuuxsadaan ama madaxaagu uu nuuxsado, makhrajkaas bisaa wax laga shidaa. arraxmaan wa tashdiidu arraxmaani shidkeediina fawqa araa'i ra'da korkeedu u ahaaday. arraxmaan marka aad ku dhawaaqayso waa inaad ra'daa shaddo, waa laga maarmaan. alraxiim wa tashdiidu araxiimi raxiim shidkiisiina fowqa araa'i ra'da korkeedu ahaaday. ra'da alraxiim ku jirta iyaduna waa shidan tahay. haddii aad fududayso ra'da oo aadanba shadin faatixadaadii ma ansixayso. haddii faatixadii ansixinna yani waxaan ansixayninba salaadii dhan. alxamdu lilaah wa tashdiidu alxamdu lilaahi shidkeediina fowqa laami ljalaalati allaahida laamteeda laamtaa dusheeda u ahaaday. jalaalada waxaa loola jeedaa allah. laamuljaalaalahaas laamtaa dusheeda shadka saaran haddii aad ka tegtid qiradaadii ma ansixayso. haddii qiradu aysan ansixinna salaadii aan ansixaynin. rabbi alcaalamiina wa tashdiidu rabbi alcaalamiina shadkiisiina fowqa albaa'i ba'da korkeedu u ahaaday. rabbi alcaalamiin. arraxmaani shadkeediina wa tashdiidu araxmaan fowqa araa'i ra'da dusheedu u ahaaday. arraxmaan ra'deeda waa inaad shiddo. alraxiim wa tashdiidu araxiimi raxiim shidkiisiina fowqa araa'i ra'da korkeedu u ahaaday. alraxiim marka aad ku dhawaaqaysana ra'daas in la shido waa laga maarmaan. maaliki yowmi اddiin
وتشديد مالك يوم الدين مالك يوم الدين شدكي سينا فوق الدال دالك كركي سوى هذا مالك يوم الدين دالك وين تشده إياك نعبد وتشديد إياك نعبد إياك نعبد شدكي سينا فوق الياء ياء كركي دو هذا إياك نعبد وإياك نستعين وتشديد إياك نستعين وإياك نستعين شدكي سينا فوق الياء يأذى كركيس هذا ولذلك يأذى هذه اللفظية إياك الليلة إياك نعبد وإياك نستعين معنه بوحو النقن معنى إسبدلي هدو قفكم معناها عقيدينا وكب قالوا بمعناها سدو عقيديه فلو خفف الياء يأذى هدو فضية من إياك لم تصح قراءته فوجب عليه إعادتها قراءة ما أنسحيسه وإنه قراءة مركة لكسو عليه وكذا صلاة دي سنوى الله مدى ما أنسحيسه انت عمد هدو كسء يالي وعلم أوقيهي وإن قصد المعنى معناها هدو قصدنا إياك أولا فضية شدك لقدها معناه كينيسو هدو أولا قصدنا كفر وبقالوبي لأن إياك أو شدك لقدها وضوء الشمس qoraxda iftiinkeeday noqonay markii hadii shadka laga daayo iyaaka nacbudu qoraxay adigan ku caabudaynaa saasoo noqon marka wal ciyaadu billah waa gaalnimo amma law shaddada al mukhaffafa kii la fududeeyay meelan shid lahayn hadduu shid saaro asaa waa xumeeyey wa ajzaahu waana u guday meelan shid lahayn hadduu shadkii iska saaro dee markaas hadduu qasadba u yeelo waa xaaraan oo laxni quraankiisi qasada in loo laxniyo waa xaaraan laakiin salaadiisii way ansixi ihdina as-siraata al-mustaqiim wa tashdiidu ihdina as-siraata al-mustaqiim shadkiisiina fawqa as-saadi saadka korkiisa u ahaaday siraada aladiina wa tashdiidu siraada aladiina shadkiisiina fawqa allaami laamka korkiisa u ahaaday siraada aladiina laamka haddaad ka tagto shadkiisii ma ansaxayo ancamta calayhim gayri اlmagduubi calayhim wala اdaalliin shidkiisiina fowqa daadi daadkii iyo wallaami laamka dusheeda u ahaaday daadka iyo laamka labadaas xarafba waa in la shido labadaa xaraf mid ka mida haddii shadkoodii aad ka tagtid qiradii faatixadu ma ansixayso faatixadii haddaysan ansixinna salaaddii aan ansixaynin marka 14 shad ayay iska leedahay faatixadii oo mid ka mida haddii laga tago salaaddii aysan ansixaynin faslun fii bayaani mawaadici rafci اlyadayn faslun haadaakani faasilun mid wax kala saarow fii bayaani mawaadici rafci اlyadayni labada gacmood koryeelkaas boosaskooda caddayntoodu u fasilya fasalkan wuxuu sheekhu uga hadli doonaa raximahu اllahu tacaala waxyaalo waxaa jira la yidhaaho hay-aatu salaad oo salaada quruxdeedii ahoo haddii laga tago wax sujuudu sahwiya aan keenaynin oo haddaad ka tagto sujuudu sahwi aan la sunnaynaynin inaad la timaado laakiin haddana quruxdii salaada qaybo ka mid oo ay kaa maqan yahay oo ajirkii iyo quruxdii salaada kaa nusqaamay waajib aad ka tagtana ma aha haddaad ka tagtana sujuudu sahwi ma sujuudaysid laakiin quruxdii iyo ajirkii salaada ayaa kaa nusqaan waa 4 meelood gacmaha in kor loo qaado xadwal mankibayn ilaa labada garab ay ka qaabilaan labada calacalood dhabarkooda ilaa labada garab ay ka qaabilaan labada suulna ay ka qaabilayaan shaxmatal udun meesha la yidhaaho oo meesha haweenku dhegadhegaha ay ka xirtaan halkaasa waxaa la yidhaha shaxmatul udun labada suulna waa inay qaabilaan shaxmatul udun meesha dhegadhegaha haweenku ay ka xirtaan halkaas waa inay qaabilaan allahu akbar atira laakiin ku dhejinta sunno ma ah dadka qaaraa shaxmatul udunka labada suul ku dhejiya markay xidhanayaan saan yidhaah taas sunno ma aha sida sunnada waxba ha ku dhejin laakiin muqaabalo waa inay sameeyaan oo ay ku aadan yihiin bis gacmaha koryeelkiisana markii takbiiratulixraamka
allahu hamsadeeda markaad bilaabaysid ayaa gacmaha koryeelkoodana la bilaaba. dadka qaara khalad gala waxay samaynayaan gacmihii marka hore soo koryeelayaan, markaa kabacdii allahu akbartii bilaabayaan. allahu akbar gacmihii iska taagan kabacdii allahu akbar ku dhawaaqi lama ogola. waa in bilowga rafciga gacmaha koryeelkooda markaad bilaabaysid iyo allahu bilowgeeda waa inay isku mid noqdaan. markii koryeelku kuu dhammaado gacanta meeshii loogu talagalay aad gaarsiisana waa inaad ra'da allahu akbar ku dhawaaqdo. allahu akbar markii gacanta meeshii loogu talagalay ay gaarto jooji takbiirtii oo ra'da ku dhawaaq allahu akbar. yusanu waxaa la sunneeyaa rafcu lyadayni labada gacmood koryeelidoodiyaa la sunneeyaa fii 4 mawaadica 4 meelood ayaa lagu sunneeyaa. 4 meelood waxaa sunnaa gacmaha in la kor yeelo. xigmada ku jirta gacmaha 4 meelood la kor yeelaayo waa ilaaha yaqaana xigmada xaqiiqadeeda, laakiin culimmada qaarkoodna waxay caddeeyeen xigmooyin qaybo ka mid ahoo sharaxan wuxuu ku leeyahay wa xikmatu rafci اlyadayn fi الsalaad kama qaala الshaaficiyu raximah اllahu tacaala tacdiimuhu tacaala. weynayn ilaahayaa loola jeedaa gacmaha kor loo qaadayo 4 meelood xayثu jamaca bayna اctiqaadi اlqalbi wa nudqi lisaani اlmutarjimi canhu wa camali اlarkaan. oo qofka weynaynta ilaahay wuxuu ku tilmaamay qalbigiisina waxaa ku jira ilaahay inuu weyn yahay, carabkiina wuu uga dhawaaqay oo wuxuu leeyahay allahu akbar, ilaaha weynin badan uu leeyahay. camali larkaanna waa ku darayoo xubnaha uu kor u qaadayana ilaaha weynu ku ishaaray. marka yacni kor u qaadidda gacmaha uu kor u qaadayo waa qayb ka mida imaamu shaafici sida uu yidhi weynaynta ilaahay qalban wa nudqan wa camalan bilarkaan. saddexdiiba waxaa lagu ishaari weynaynta ilaahay. wa qiila waxaa la yidhi alishaaratu ilaa darxi maa siwaahu tacaala. gacmaha kor loo taagayo waxaa lagu tilmaamay ilaahay wixii ka soo haray ayaan iska tuuray, ilaahay un baan caabudi weye, wax kale ma caabudayo. waaliqbaali bikuliyatihi calaa salaatihi, iyo guud ahaantiisaba inuu salaaddii qaabilu ku ishaaray oo wixii adduunye iyo mashaakilkeedii oo dhan ayaan tuuray oo ilaahay un baan qalbiga ku qaban oo ilaahay un baan qaabili. wa qiila waxaa la yidhi alishaaratu ilaa rafci اlxijaabi bayna alcabdi wa bayna rabbihi. waxaa kaloo la yidhi gacmaha koryaalkooda waxaa lagu tilmaamay oo lagu ishaaray xijaabkii adiga iyo rabbi idiin dhexeeyey oo waxyaalihii shahawaadkii iyo macaasidii iyo dembigii wixii rabbi inaad gaarto agtiisa maqaam aad ka gaarto kaa celinayey ilaahu iga xijaabay ka dhig, ilaahu iga qaad oo xijaabkaa iga qaad oo xijaabka iga furfur ayay ka dhigan tahay gacmahaas aad kor u qaadaysid. wa qiila waxaa la yidhi hayru dalik, xigmooyin kalena waa lagu sheegay. yusanu waxaa la sunneeyaa rafcu lyadayn labada gacmood koryeelkoodiyaa la sunneeyaa fii 4 mawaadica 4 meeloodaa lagu sunneeyaa cinda takbiirati اlixraam, takbiirta xirashada agteedaa lagu sunneeyaa. kow marka takbiiratulixraam aad samaynaysid sida aanu hore u sheegnana takbiirta bilowgeeda iyo gacmaha kor qaadidooda bilowgooda waa inay isku mar noqdaan. gacanta markaad kor u qaadaysid oo aad bilaabaysid iyo allahu akbarta markaad bilaabaysid isku mar. wa cinda arukuuci, rukuuca agtiisana waa la sunneeyaa oo markaad rukuuca usii hoobanaysidna gacmihii inaad kor u qaaddaa la sunnayn. wa cinda alictidaali, sinaanshada agteedana waa la sunneeyaa markaad dhabarkaaga aad simayso samic allahu aad akhrisanaysid, ictidaalka agtiisana gacmaha markii aad xiranaysay meeshii aad geysay ayaad geyn, samica allahu liman xamidah ayaad leedahay. wa cinda alqiyaami, istaagga agtiisana waa la sunneeyaa gacmaha in kor loo qaado min atashahudi, ataxiyaadka laga istaagayo, ataxiyaadkaasoo alawali ee horreeyey. ataxiyaadka hore markaad ka istaagaysid oo ragcada saddexaad aad u istaagaysidna waa inaad gacmihii kor u qaadid. 4taas meelood ayaa laga soo guuriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu gacmaha kor u qaadi jiray. faslun fii waajibaati sujuudi, wuxuu u fasal yahay sujuudda waajibaadkeeda. yani marka sujuuddu ay noqonayso sujuud muctabar ah oo xagga sharciyan lagu leeyahay waa sujuudo ruknu min arkaani الsalaa ayuu qofkaasi gutay marka lagu leeyahay waa in shuruudan soo socoto 7 ah waa in sujuuddaada laga helo.
sujuuddaa keli ahoo wejigaagii aad dhigaysid meesha aad ku sujuudaysid aad dhigaysid halkaa rugniya wuxuu iska leeyahay ilaa 7 shardi yacni salaadda cilmigeedu inuu ballaaran yahay oo salaadda cilmi la'aan aysan soconaynin waa cibaado walbana waa sidaas laakiin salaaddaaba hadda aan haynaaho ugu muhiimsane salaaddii taaka kastood qaaddo waxay u baahan tahay cilmi shuruudu sujuudi sujuudda shuruuddeedii 7 7 shardi ayuu iska leedahay sujuuddu an yasjuda qofku waa inuu sujuudo calىa 7 acdaa'in 7 xibnood waa inuu ku sujuudo 7 xibnood waa inaad dhigto meesha aad ku sujuudayso 7 xibnood inaad dhigto waa shardi limaa ruwiya can ibni cabbaas cabdullah ibni cabbaas saxaabiga la yidhaha waxaa laga wariyey annahu qaala ibnu cabbaas inuu yidhi qaala rasuulu llaahi rasuulka alle wuxuu yidhi salى اllahu عalayh wasalam umirtu waxaa lay amray an asjuda inaan ku sujuudo calىa 7 acdum acdum bimacnaa acdaa ayaa loola jeedaa 7 xibnood inaan ku sujuudo ayaa lay amray uu yidhi rasuulku salى اllahu عalayh wasalam calى aljabhati wejigii walyadayn labada gacmood wاlrukbatayn labada jilib wa adraafi اlqadamayn labada gomadood geesahooda waa faraha labada lugood labada cagood farahoodii faraha geesahooda wa an laa akufa hiyaaba iyo inaanan dharkii reereebin iyo washacra tintii yacni tin weyn oo qofku sujuudda uga hormaraysa hadduu leeyahy dhulka uga hormaraysa maantii oo dhan inaad tinta sinsimato oo ku dhex xaragooto salaaddii dhexdeeda la diidi oo dharkii aad ku dhex feeraysato salaaddii dhexdeeda saa maantoo dhan is yeesho taas waa la ii diiday uu yidhi nabigu salى اllahu عalayhi wasalam walidaalika salaadda waxaa loo baahan yahay khushuucaa loo baahan yahay xadiiskan nabiga salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu tilmaamay wa an laa akufa hiyaaba washacra wa an laa akufa hiyaaba washacra waxaaba ka daranba dharkii celcelintiisii iyo tintiioo marba gadaal loo rido mar horey loo soo ridayo iyo ayaaba la diidaye waxaa ka daran jawaalka salaadda lagu fiirinayo oo markii telefoonka uu kuu soo dhaco dadka jeebka inta ka soo bixiya dhahaya fursaddu yaysan ku dhaafin waxaa laga yaabaa qof lacag kuu soo diraya inuu yahay ama qof arrin fartiin muhima kuu wada yahay maanta o dhan lambarrada fiirsana haddana waa ku celina jawaalkii ku celin haddii horta dhaqdhaqaaqa mobilka markaad soo bixinaysid 3 xarako hadduu gaaro oo isku xigoo mutawaaliyaada salaaddii waa kaa burtay haddii xataa 3 xarako uusan gaarinna waxaad ku dhacday wax salaadda dhexdeeda aan u habboonayn wax salaadda dhexdeeda aan u habboonayn oo karaahiye ah oo khushuucaagii tashwiish gelinayaad ku dhacday khushuucaagii tashwiish gelinaya walidaalika nabigu salى اllahu عalayh wasalam wa an laa akufa hiyaaba washacru tintii aa la diiday xataa inaad sidan gadaal yacni u ridriddo markay sujuudda iyo kaaga hormarto gadaal iyo aad u ridriddo taasaa la diiday iyo dharkii inaad maaragtaa reerreebto marba dhinac u feerayso dharkaay adigu aad wadatay ayaa la diiday walidaalika jawaalaadka lagu qabanayo mobeelada lagu qabanayo salaadda dhexdeeda oo lambarrada lagu fiirfiirsanaayo oo laleeyahay fursaduhiisan ku dhaafin qofku marba haddii marxaladdan uu dhex galo alitisaal maca allah ilaahay hadduuba xidhiirhkiisa bilaabay oo allahu akbar aan nidhi hadda markii culimmadu ay fasirayeen asbaabta gacmaha kor loogu qaadayo marka salaaddii la xidhanayo iyo mawaadicda afartaaba xigmadaha waxaa ku jiray darxu maa siwa allah wixii ilaahay ka soo haray ayaan iska tuuray salaadaan geli wixii ilaahay ka soo haroo dhan ayaan iska tuuray oon ka sii jeestay dee adigoo allahu akbarna yidhi oo darxu maa siwa allahi sameeyey haddana mobeelkii aad leedahay fursaduyaysan iga fakan waa khalad arrimaha noocaasa waa in layska joojiyo waxa weeye qofkii khushuuci hore waxaan u soo qaadanay xataa culimmada waaweyn sheekh ka mid oo la dhihi jiray alimaamu alghazali moxamed ibnu moxamed alghazali raximah اllahu tacaala inuuba arkaanu salaad ku soo daray alkhushuuc fi salaa oo uu yidhi qalbigaagu haddii meel ka mida uu salaaddii ka baxsanba uu aado oo waxyaalo kale qalbiga aad ku qabatid salaaddiiba waa kaa buri saas uu ghazaali qabaa raximah اllahu tacaala wاlkhuruuj min alkhilaafi mustaxabun masalada khilaafiyadana in layska ilaaliyo waa sunno oo wax khilaafa salaadaadii aysan ku dhex dhicinin wa an takuuna jabhatuhu shaksiga wejigiisu waa inuu ahaado makshuufatan mid la fayday waxaa kaloo shardi ah markaad sujuudayso wejigaagu inuu faydan yahay
أما هذه عمامة قربك كوسارا أو كلا هذه سجودي أي كاغا هرمرت أيضا عمامتي ولي قربك كوسارا ترى يعني سيكر سجود صلاة هذه وإبر ما أنصحيش هذه لكن عمامة دولك أدقتي وعمامة هذا تكر سجود لما لها لكن شيء متصل وكل حريره هذا كل راعي وكل دقاقي هذا تكر سجود إبر ما أنصحيش وأن تكون جبهة شخص وجهي سواء وهذا مكشوفة مثل فيدي ولذلك إمام البيهقي رحمه الله تعالى كتاب كيس السنن كأهو حكوريي نن أصحاب النبي كمد صلى الله عليه وسلم كان يسجد بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكو سجود رسول كبن عيسى صلى الله عليه وسلم وقد اعتم على جبهته ninkaasina wejiga ayaa waxa uga duubnaa cimaamad oo cimaamaddii waxay ka soo gaartay wejigiisa ka soo gaartay oo saan amal u ahaa cimaamadiisa saas iyadoo cimaamaddii uu ku sujuudayo marka ninkiina nabiga agtiisa ku sujuudsan yahay sallallahu alayhi wasallam nabiguna waa fiirinayay sallallahu alayhi wasallam waqad i'tamma ala jabhatihi asagoo wejiga cimaamaddii ay ka soo gaartay wejiga cimaamad ku duubtay faxasara rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam عن جبهته رسولك صلى الله عليه وسلم إنك أنت أدوادي ووجهك كفيدي رسولك صلى الله عليه وسلم وفعل أهان وبكو تعليمي نبي عليه الصلاة والسلام فعل أهان أي وحكت الصير رسولك صلى الله عليه وسلم إنك سحابها حديث كإمام البيهقي أي السنن كيس كوريي تاسي مركا وحيت السنة قفك وجهيسي هدي مرأي كسار انتهي أو مرضي دل سجوده إن سجودي سيئسا أنسحين والثانيها أن تكون جبهته مكشوفة إلا لعذر عذر دار إنه يماذا ماهاني كوجود شعر نابت فيها هذا دي وجهي تنو أي كسور دلاتو تنتي مركز أي دبوليس وجهي سلام تنتي اللي سيكر سجودي ضرورة كنتي وعصابة لوجع أما على يمرأ يوحل مدها وغحرانه حنونها هيا ووجهي حنون كان هيا حيث شق نزعها سيبدا على الكاسنا أي لبكتها مشقة شديدة ولا يعيد صلاة سوء المايو إن وضعها على ظهر على الكاس وجهه وغحرا وحنون كدرتي لو غحري هذا الظهارة مركي هرب كدجيي ولم يكن تحتها نجس غير معفو عنه هوستيدا نجاس أن العفينين المرضى هوستيدا نجاس أن العفينين إيسان كهوسينين وإلا هديك لو الظهارة وصل مركي هرب كدجين أعاد صلاة وسوء لنا مركز وعدم الهوي هو بشوين تيديو عدم الهوي بضم الهاء وبفتح الهاء التحامل والتحامل اسكو حنبارد برأسه مدحي سواء اسكو حنباره برأسه مدحي سواء اسكو حنباره ولجدد لقال يهي وحوي وأن يصيب ثقل رأسه وليس كمدحي سواء تابته أو أصيبه موضع سجوده booska uu ku sujuudayo culayska madaxu waa inuu taabto lacalla fuqahadu waxay ku miisaaliyaan haddii isbuunyo meesha aad ku sujuudayso isbuunyo hadday ahaan lahayd dusheeda waa in isbuunyadaasi ay duusmi lahayd oo saamayn uu ku yeelan lahaa culayska madaxiisa laakiin haddii taabsiin uun aad ku sujuuddo oo culayska madaxa aad ka ilaalinayso meeshii inaad saarto oo meeshii sida aad u taabsiiso sujuuddaadii ma ansaxayso haddaysan ansixinna salaaddii aan ansixaynin وعدم الهوي أما الهوي هذا إن لقده إن لكردق الله بدو يبنانت وعدم الهوي هو بشاء وين تدوي لغيره غير السجود سجود غير كيس عن الله هوبا وإن قصدك أدو هوبا نيسو سجود وإنه نقضى إلى جدد وحا أدو هوبا نيسو وإنه سجود نقضى أو كلئة هدي إلى جدد كلا أدو هوبا تد سجود هذه ما أنسحيس ومثلا تصالحان سمع الله لمن حمد مركاتري أدقون ولي سجود قفاكو كلا توري مركاتري أول بسجودا السعودي أسك سجود إبرول ما أنسحيس أما واد النحلية واللقان نحيي وحيال حبض وحلا مدى أكتاد اللقر ردي هوسad هوبتي مركا هوس مركا أبدا الدكتير وحتري أول بوات سيسو عتي إسك سيسو وسجود ما أنسحيش
وإن قصدك إلى جيدة أدوه بنيسه وإن النقض لأجل السجود فقط سجود بس وأن لا يسجد وإن سنكو سجود على شيء دشيسة شيء قاسو يتحرك لدق دقاقي الشيء حركة المصلي قفك تكنايا دقدقاقيسا لدق دقاقي wax kula nuuxnuuxsanayo markaad istaagto kula istaagayo markaad fariisato kula fariisanayo shay noocaas oo mara ah waa inaadan ku dul sujuudin haddii shayga marada aad ku dul sujuudo ee sujuudaadii ma ansaxayso ay fii qiyaamihi markuu taagan yahay walow bilquwa awood ahaanba shaygu ha kula dhaqdhaqaaqay hadduusan xataa shaygii ficil ahaan ula dhaqdhaqaaqaynin laakiin awood ahaan uu ula dhaqdhaqaaqi lahaa lacalla hadduu istaagi lahaa ula dhaqdhaqaaqi lahaa oo uu ku dul sujuudo salaadiisii ma ansaxayso bian sallaa qaacidan fadhiyuu ku tukanaya tusaale ahaan wasajada wuxuuna ku sujuuday calaa muttasilin bih shay isaga la xiriiruu ku dul sujuudi mar walba maro oo kale go oo kale uu ku dul sujuudi shaygaasoo laa yataxaraku bixarakatihi fi lqucuud intuu fadhiyo maradu waa maro weyn oo fadhigiisaba ka soo kala haraysa intuu fadhiyo waxa weeye shaygii ma la dhaqdhaqaaqayo ilaa fadhiyuu ku tukanayo isagu fadhiyuu ku tukanayo waa qof istaagii ka caajisay oo kale wa kaana wuxuuna ahaan lahaa qofkaasi bixayثu makaan low sallaa hadduu tukan lahaa min qiyaamin istaag lataxaraka bixarakatih waa la dhaqdhaqaaqi lahaa hadduu istaag laakiin ku tukan lahaa shaygu waa nuuxnuuxsan lahaa fayaduru daalik kaasi wuxuu keeni dhib maxaa yeele isagu fadhiba ha ku tukado oo yuusan shaygii dhaqdhaqaaqin markuu fadhiyo laakiin lacalla hadduu istaag ku dukan lahaa hadduu shaygii la dhaqdhaqaaqi lahaa salaaddiisii markaas ma ansaxayso inkastoo mas'aladani ay ka mid tahay masaa'ilka ay isku khilaafsan yihiin ibnu xajar ulhaytami iyo rimli oo hadda waxa weeye sharxan wuxuu qaatay qowlkii rimli uu qaatay ama ibnu xajar ulhaytami fatasixu salaatu cindahu oo qofkii hadduu fadhiyo wixiiba xaalatulqucuudba aysan dhaqdhaqaaqba jirin oo wax maradii aysan la dhaqdhaqaaqay inuu ku dul sujuudo salaaddiisii waa saxiix uu leeyahay ibnu xajar ulhaytami raximahu اllahu tacaala wa min almutasili kan la xidhiira waxaa ka mida juz-uhu xibnahaaga waa ka mid waxyaalaha kula xidhiira falaa yasixu sujuudu calaa naxwi yaddi gacantaadoo kale haddaad iska hormariso markaad sujuudayso oo gacantii aad ku dul sujuuddo calcashaadii aad ku dul sujuuddo calcashi way ku raacraaci ma ansaxayso ama almunfasilo wixii asaga aan la xidhiirin oo ka soocan walow xukman xugum ahaanba ha u socnaado ka cuudin laan oo kale aw mindiilin istiraasho oo kale biyaddi istiraasho gacantiisa uu ku hayo oo kale fayasixu sujuudu calayh waa ku dul sujuudi karaa shayga hadduuba munfasil yahay wax asaga ka soocan xugum ahaan uu yahay liannahu laa yucaddu laguma tiriyo muttasilan fi lcurf xagga caadada curfi iyo laguma tiriyo shay asaga la xidhiira wakadaa waxaa la mida darafu cimaamatihi darafkaasoo addawiil cimaamad aad u dheer darafkeedu dhulka iska taalla markuu taagan yahay darafkeeduu ku sujuudi jiddan si daran u dheer cimaamaddu bixayثu laa yataxaraku bixarakatihi waa cimaamad weyninkeedu zaa'id yahay oon la dhaqdhaqaaqaynba markuu istaago iyo markuu fadhiisanayo on la nuuxsanaynba liannahu fii xukmi اlmunfasil waa waxaan la xidhiirin oo kale la midta hadduu shaygu shay aad u weyn uu yahay waxaan la xidhiirin oo kaley ka dhigantay wairtifaacu asaafilihi meelihiisii hooseeyey asaafili اlmusalli qofka tukanaya meelihiisii hooseeyey kor noqoshadoodii wo calaa acaaliihi acaali اlmusalli qofkii tukanaya meelihiisii sarreeyey ay ka sara maraan meelihii hooseeyey jirkaaga marka aad taagan tahay meelna way sarraysaa meelna way hoosaysaa waxaa la rabaa markaad sujuudayso jirkaagu inuu cagsi sameeyo jirkaagu inuu cagsi sameeyo hadda markaad qumaati u taagan tahay madaxaagiyaa koreeya waxaa hooseeya sintaadii simahaagiina way hooseeyaan madaxaagiina wuu koreeyaa markaad sujuudaydo arrinkaas cagsi waa inuu noqdo oo madaxaagu waa inuu hooseeyo simahaaguna ay koreeyaan oo cagsigaas inuu yimaado waa laga maarmaan haddii laakiin tusaale ahaan wax cagsiya uusan jirkaagu samaynin xaalatu sujuud oo tusaale ahaan mixmalkan kitaabku aniga ii saaran yahay oo kale haddaan sidan ugu sujuudo sidan haddaad u sujuudid oo mixmalkaas sidaa ugu sujuudid wax cagsiya miyaad samayso madaxiiyaa koreeyey haddana weli waa koreeya xaalatu sujuud meel buurahoo koreeya ama shay murtafica
ومدحي سارنا سنتي وضم بيسا ويهو سيسا مدحين ولي وكريا سجود ما أنسحيس وارتفاع أسافله ميله سيهو سيي كرنقشدو ديو على أعالي المصلي ميل قفكي تكنا ميله سي سريي وإن كسر مران كوي هو سيي إن سر مران إلى الله وهي عجيزة وسنتيس وما حولها على أعاليه وهي الرأس ومنكباه مدحيس إلى وضع قرب مدح إلى وضع قرب إنه هو سيان على الروا حالة السجود إلا إذا كان في سفينة قفك إنه الدون كده تكنا يماهنه ولم يتمكن منه وصلنا مكانسا ارتفاعا وإنه مدحي هوس الرارعيه ويسن أسر تقلين لنحو ميلها ودون تياب اللي حنيسو وما أسر تقليسو إنه سميه أي كريان مدحنا وهوسيه فيصلي على حاله ويعيد حالة دي سوء كنا صلاة دينا وسوء علنا لأنه عذر نادر وعذر نادر بخلاف ما لو كان به علة لا يمكن معها السجود وحلم إذا وحا خلاف سن هدي عذر وهايو وصورة قلب وسنهين إنه وجهي ويمدحي ورارعيه فإنه لا إعادة عليه حنون هدو جرو وسداس وكسجوده وجهي بإنه هاس مريم مدحي إسن صورة قلين مسوع علينا صلاة سيدي سجدتك وكذا وحلم إذا صلاة أن سوء علينين الحبلى إسلامة أوركله إسلامة أوركله هدي دب أي تايو أوركي أد ويهيو علاشي أي قبنيس وسجود أي دب كتاي مشاغل شديدة أي دريميس وعلمت إذا شق عليها ذلك هدي سلاس إن لو سجود إسلامة أوركله ودبيو فتصلي أيضا هب كذا تكنه ولا تعيد من سوء علينيس مسوع علينيس أيضا وكذا وحلم إذا ما لو طال أنفه سنكيس هدور ديراده وصار يمنعه سنكي وديده من وضع الجبهة على الأرض مثلا ووجهي بدولك مقارا يو سنكي يا بديده سنكي يا إلهي أودي سبحانه وتعالى قف سنكي سوية أدنى وديري هاي أيو نقضى وجهي وما بطابن كرا ودولك والضمأنينة حسلوني ويفيه في السجود سجود دحدي سوا إن لغو حسله ضمانينadu waa laga maarmaan qofka haddii intuu meeshii maxalkii sujuudda sidaa dhug u yidhaaho isla markiiba ula soo boodo oo ugu yaraan biqadri subxaanallahi ba meeshii uusan ku haynin salaadiisii ma ansaxayso khaatimatun haadihi tani khaatimatun mid khatintayu fii dikri acdaa'i sujuudi sujuudda xibnaheedii xibnaha sheegiddeedii mid khatintayu khaatimatun هذه تني خاتمة مدخة تيو في ذكر أعضاء السجود سجود حبنه سي حبنها شيء دي مدخة تيو شيخ هالكم حروائن وكجود قالوا أعضاء السجود إن لا شيء مرك إلا وحن نفصل كيه ركوسه قادني أن يسجد على 7 أعضاء عنوري تضبط حبنه وإنه كسجوده تضبط حبنه واجب أيتين لجو سجوده وتضبطه تاسر وشيخ نكوع عديه أعضاء السجود سجود حبنه 7 تضبوا الجبهة وجهه وبطون الكفين لبضع على علوش ذو لبضع على علوش ذو إن لدقوه وواجب والركبتان لبضع جلبه وبطون أصابع الرجلين أصابع ومشى عينك وهوس دقينه وكردقه وبطون أصابع الرجلين لبض اللغات فرهودا فرهاس علوشودا لبض اللغات فرهودا فرها علوشودا إلا دقوا ولا مرمان بطون لير محابة هي علوشودا هداد قدي سفره دبر كات كسجودة فرها دبر كودي أياد دقتي مركات سجوديس ما انسحيس صلاة داس تطبضان أنا أرهن كوكت سمية مركز سجوديان ماشي للربي فرها علوشودا إن دقان حالة السجود waaba gedinayaanba oo farihii dhabarkoodii intay dhulka dhigaan ay sidaa ku sujuudayaan taasi ma ansaxayso marka maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskii Bukhari iyo Muslim ay warinayeen oo hadda sharxaanu ku soo qaadanay wuxuu ahaa wa atraafil qadamayni labada gomadood cirifyaalkooda yaani faraha foodooda way in lagu sujuudo waa laga maarmaan faraha lugaha أما هداد قدسه أو دبرك فرها عاد لقطه مركز سجوديسه صلاة دادي ما أنسحيس
وبطون أصابع الرجلين. فصل في عدة الشدات في التشهد ومواضعها. فصل هذا كان فاصل المدوح كلا سارو في عدة الشدات الشداديالك تردود وفصل يهي الشداديالك سو في التشهد التحيات كالحديث هذا ومواضعها مواضع الشدات هي الشداديالك بوس كودنا وفصل. فصل كان شيخ وحوقه للدونا رحمه الله تعالى وانصوم مرني فاتحة الشداديالك دي أفر يتوانشد إن فاتحة وإسكالهي هل كان الشيخ وحوقه لي التحيات كأنت الشد أو إسكالهي تشديدات التشهد التحيات كالشداديالك سي 21 لباتين كوشد لباتين كوشد أيها التحيات إسكالهي 5 شنشد في أكمله أكمل التشهد التحيات كما يشاء كامل لماذا بدن أيها شنشد أهاتي الزيادة شنشد الزيادة ومركي لدى التحيات كي هل كلمة ينلقتك هل كلمة ينلقتك 16 اللحية تبنشدنا في أقله أقل التشهد التحيات كما يشاء يران تبضن ومد كميدا هداد كتكتوى صلاة دي أيسان أنسحينا اللحية تبنشده مركب محال لولا جيدا أكمل التشهد هي أقل التشهد التحيات كما يشاء أغير مركب الولاية هي التحيات لله وين تراهد التحيات المباركات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا لبدا السلامة شتكي كتج لبدا السلام هدي شتكي أتكتكتو مدول بعض نكريسو أو أشي يشتكي بعد كتكتو كان هرنا أتراهد سلام عليك أيها النبي مدك كلنا أتراهد سلام علينا واحد قادتي أقل التشهد التحيات كميشي وغيرين أو واجبك وكاغد عايو وهكذا لو كبودي الصلوات الشتكي دي مع الكلمة دي يودن كلمة دي يودن التحيات المباركات الصلوات يودن ما بشيغيس كلمة داس مع الشتكي دي التحيات لله يدلها التحيات لله محمد كلا قلتي الصلوات الشتكي دي هي الطيبات لبشدو كجري إذن ولا قلتي سدح سماها لبدي السلام السلام عليك أيها النبي شتكي دي إيو السلام علينا هذا كنا غشان سماها مركا 5 في أكمله ساس أولجهدا شيخ رحمه الله تعالى. تشديدات التشهد التحيات كشداديال كيسي 21 واللباتين يكوشد 5 شن في أكمله أكمل التشهد التحيات كمتك أقول كامل سنة هذا 16 اللحية تبنشدنا في أقله أقل التشهد التحيات كما يشاء أقول يران تبضن أي اللحية تبنشد هذينه ميل كير بأيسن جرين وهدي هالحب الله قتقو صلاة دي بأيسن أنسحين التحيات شداديال كيدي على التاء والياء تاء ياء الدشة هذا المباركات وتشديد المباركات وتشديد المباركات الصلوات المباركات الصلوات شتكيدينا على الصادسات كدشة هذا الطيبات والتشديد في الطيبات الطيبات شتكيدينا على الطاء والياء بعد ياء الدشة هذا لله وتشديد لله لله شتكيدنا على لام الجلالة الله إذا اللام تيدا دشيد وهذا السلام وتشديد السلام السلام شتكيدنا على السين سين كدشيس وهذا عليك أيها النبي شدديال كيدنا على الياء والنون والياء ياء النون تا ياء كله إلى لبي أماشى كشدنا أيها ياء ده يا النبي ياء كجرت سدح شيء يسكن قنايا مرك ورحمة الله شتكيدنا على لام الجلالة الله إذا اللام تدشيد وهذا رحمة الله وبركاته السلام شتكيدنا على السين سين كدشيد وهذا علينا وعلى عباد الله شتكيدنا على لام الجلالة
laamta laamulجalaalaha allahida laamteedii ula jeedaa korkeedu ahaaday الصاalixiina shidkeediina calى الصaadi saadka dusheedu ahaado saadkaa la shidi ashhadu an laa ilaaha shidkeedii calىa laami alifin laam alifka dushiisuu ahaaday ila اllahu shidkeedii calىa laami alifin wa laami اljalaalati laam alifka iyo laamta allah labadaa laam dusheeduu ahaaday wa ashhadu anna shidkeedii calى الnuuni nuunka dushiisu ahaadoo nuunkaasaa laga maarmaana in la shido muxammadan rasuulu الlah shidkiisii calىa miimi muxammadin miimka muxamed uu ahaaday salى اllahu عalayhi wasalam wa calى ra'da dusheedana waa ahaaday ra'da rasuulullah wa calىa laami اljalaalati laamulجalaalaha dusheedana waa ahaaday laamta allah shidadyaalkaas ataxiyaadka qaybta aqalka ah ee ugu yaraanta ah mid ka mid a haddaad ka tegtid ma kuu ansaxaayo ataxiyaadkii hadduusan ansixinna salaaddii o dhan aanba ansixaynin faslun haadaakani faasilu mid wax kala saaro fii shaddaati salaati calى الnabiy fii shaddaati salaati ku sallinta shidadyaalkeedii ayuu u fasal yahay calى الnabiyi nabiga lagu saliyo salى اllahu wasalam wbaaraka calayh fasalkan wuxuu ka hadli doonaa maadaama nebiga salligiisa salى اllahu عalayhi wasalam uu laga maarmaan yahay oo ataxiyaadka haddiiba salligaas aan lagula imaanin salaaddiiba aysan ansixaynin isagana bal salliga inta laga maarmaan ah oo waajiba in la shido ayuu kuu sheegi sheekh raximah اllahu tacaala tashdiidaatu aqali الsalaati ku sallinta midda ugu yaraanta badan cala الnabiyi nabiga lagu saliyo salى اllahu عalayhi wasalam shidadyaalkeedii 4 wey nebiga salى اllahu عalayه wasalam inta ugu yar oo wax ka sii yarba aysan jirin oo lagu salinayo waajibka bis un kaaga dhacayo waxaa ugu yar allaahuma salli calىa muxammadin intaas haddaad tiraa waajibkii wuu kaa dhacay allaahumma shidkeedii calى اllaami wاlmiimi laamka iyo miimka dusheedu ahaaday salli shidkiisiina calى اllaami laamka dushiisuu ahaaday calىa muxammadin shidkiisiina calى اlmiimi miimka dushiisuu ahaaday oo isagu 4taas shid ayuu salligu uu iska leeyahay laakiin sida fadliga badan waxaa weeye salliga in la dheereeyo oo nabiga salى اllahu عalayhi wasalama lagu saliyo iyo aalkiisii iyo nebiyullaahi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam salliga sidaas loo dheereeyo sidaasaa ajir badanoo salaadda ibraahimiyada la yidhaaho lala yimaado wa akmalu الsalaati calى الnabiyi wa afdaluhaa salliga nabiga waxaa ugu fadli badan uguna kaamilnimo badan sawaaءun fi الsalaati wa khaarijiha ama salaad ha lagu jiro ama salli wardiya ha kuu noqdood ku wardiside kana ugu fadli badan salaad ibraahimiya la yidhaho kamaa nasa calىa dalika ramliyu siduu caddeeyey allaahuma salli calىa sayidina muxamed wa calىa aali sayidina muxamed كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كاسا أقول فضل البدن وحال إلى الصلاة إبراهيمية وأنا مدى كسو أروري بخاري غير كيسبة صلاة إبراهيمية أما صلاة كجر أما صلي وردي هالنغضو kana ugu fadli badan waa midkii laga soo guuriyey nabiga salى اllahu عalayه wasalam amaa ziyaadada lagu ziyaadiyo lafdiga sayidina oo marka nabiga lagu dhawaaqayo salى اllahu عalيه wasalam allahuma salli calىa sayidina muxammadin la yidhaaho ziyaadadaasi waxay ku fiican tahay waa alikhbaar biاlwaaqic wاlإtyaan biالnas naskii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam salligiisiina waad la timid wixii waaqica ahay oo nabigu uu isku tilmaamana waad la timid marka laba faa'iido ayaad samaysay haddaad siyaadada yacni sayidina aad ku dhawaaqdo waa naskiina waad la timid oo waad ku camal fashay naskii xadiiskii oo salligii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam salaaddii ibraahimiyada waalikhbaar biاlwaaqic sidii waaqicahay oo xaqiiqadii nabigana waad sheegtay salى اllahu عalayh wasalam maxaa leh nabiga xaqiiqadiisu waxay tahay inuu sayid yahay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam bukhaari iyo muslim waxay wariyeen ana sayidu waladi aadama walaa fakhr oo nabiyullaahi aadam calayhi الsalaatu wasalaam faraciisii oo dhan
aniga boqor u aho ugu fadli badan uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wala fakhra mana ku faanayo marka waxa weeye naskina waad ku amal fashay ikhbaar bil waaqicna uu yahay oo wixii jiray iyo xaqiiqadii nabigana waad sheegtay sallallahu alayhi wasallam tatima waa dhamaystir yusannu waxa la sunneeyaa ad-du'aa ba'da tashahhud al-akhir bima shaa atahiyaadka markuu dhamaystiro inuu ducooyin iska galo atahiyaadka salliga markuu dhameeyo ducooyin inuu iska galaa wanaagsan wa afdalu waxana ugu fadli badan at-ta'awudu min al-'adab wal fitan li khabari muslim عذاب القبر يفدنا قبر إن إله لقى من قال سبحانه وتعالى إذا تشهد أحدكم نبي وحده صلى الله عليه وسلم أحد كين مركو التحيادي فليستعذ بالله من 4 أفر الرماد إلهي كم من قال فيقول حليه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إله حن كان من قال عذاب القبر ومن عذاب النار إله عذاب النار تنوى كان من قال ومن فتنة المحيا والممات فتنة النلشة يجريدنا إله أن كان من قال ومن فتنة المسيح الدجال فتنة قال كمسيح الدجال كان إله أن كان من قال مركا أفرتاس إلهي كم من قال ويري النبي عليه الصلاة والسلام مركا تحيات كذا ميسان مركا والدعاء ركوبا وقت دارنا أن كاقادين وحوين نكوت ريسة ونلش هذا الدنيا يمد على آخرة فإذا وين كوسو جيديسو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال قال شبراميل سيوحويري ويكره ترك ذلك إن دعاء سلقته وكراهيه ووالله كهذا وهو آكد ما أوجبه بعض العلماء علماء قاركودنا واجبي وكدغان سيده داووس وكله داووس تابعي واجب ويديه جري ولي ويلكيسا هدا كور انتو اتحيادي داووس ويلكيس انتو اتحيادي سيده روايه صحيح مسلم كانوا ku qaadanay انتو اتحيادي wuxuu yiri afartan ilaahay ma ka magan gashay ma yiri waa ka tagay ku soo celi yiri salaadii ku soo celi yiri قال عمير wuxuu yiri قال الأدرعي في القوت أدرعي كتاب في سقود اللي راوح كويره هو شرح المنهاج وشرح المنهاج شرح المنهاج كله أدرعي كتاب القوت كتاب اللي راوي هذا والله طابعي ودارت اللي دار الكتب العلمية هذا الطابع ذي 8 مجلد أي كتب طابعين كتاب كان القوت اللي راه شرح المنهاج لكن وحي سميان دار الكتب العلمية شرح هذا الطابعين شرح رسمي هاي معها أدرعي شرحيسي رسمي هاي معها وحي سميان أدرعي قيب كمذا شرحيسي انتهي هلان أي قيبه كلا يقول لما يشترين دار الكتب العلمية لما يشترين وحي كل لما يشترين أقواشي أدرعي وقاركود كقرنايان كتاب مغني المحتاجك وشرح منهاجك قارنا كقرنان جيرين تحفها وشرح منهاجك قار كقرنان جيرين نهايها وشرح منهاجك شراح المنهاجك قال الأدرعي وحي كجيرودا انتي سو قربيان كتاب كدغان markaas ay dhahan waa sharxi wala helay sharxi adrici wala helay sharxi adricina adduunka mafquud uu ku yahay wax yar bis laga helay sharx manhajka uu sharxay intii kale waa la waayay qaybihi kale qaybtii ay heleen amaanadii haday sidii u soo daabici lahayn waxay noqon lahayd waxay soo gurbiyeen qaal adrici waxay sharaxda ku jirta markaas ay 10 mujallad ka soo dhigeen waana la keenay hadda bakaara la keenay dadkii marka waxay u maleynayaan sharxi wala helay adrici oo kulli nafiisa مع ذلك شرح يرن ما هني دار الكتب العلمية انت بدن سميسي سمركاس يعني يسوق جلس ولا يراد رعي وينايا كتاب كيس الله marka waxa fiicnaa amaanada in la guto oo qidcadii laga helay sharax adrici qaybtaas bis la soo taabaco وهو شرح المنهاج wuxuu yiri hada mutaakkid faqad sahha al-amr bihi ducadan waa duca aad u adag ajirkeediyo in la yimaado aad u fiican oo waaba lees amray oo awjabahu qawmun قومنا واجبي كدغeen waa amar daawus wuxuu amray ibnahu wiilkiisi bil aadati in la salaada uu soo celiyo li tarki ducadan inta ka tago wuxuu wiilkiisa ku yiri soo celi salaadii waa riwaayatu muslim fi sahihi yaa muslim ka sahihiisa ku wariyay وينبغي waxa haboon yaqtima bihi ducaahu ducadiisa inuu ku khatimo biqowlihi sallallahu alayhi wasallam la nabiga qowlkiisa wuxuu ahaa waj'alhunna ayal ay ta'awudat al-arba' afartan shay ilaahay aad ka magan galayso aakhira ma taqul waxaad ku hadlayso waxa ugu dambeeya ka dhig انتهى قول شبراميلسي رضي الله تعالى عنه فصل في السلام فصل هذا مثل فاصل من حكى صار في السلام وفصله سلام النقص صلاة مركا laga baxayo inta ugu yar iyo shida diyaalkiis aqallu salaam naqsiga kan ugu yaraanta badan assalamu alaykum
وأنت واجبك كاغا دعاي انتاس أنت واجبك كاغا دعاي وانتاس تشديد السلام شدكيسي على السين هل كاشد بسو بليه سين كدوشي سالة سيدو السلام عليكم يا لليه قال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء صلاة فرهد ووسقات وتحريمها التكبير صلاة تحريم كذا حرشيد دنا الله أكبر وتحليلها التسليم صلاة وحى اللوغة حلال نقضاها اللوغة بحا والسلام النقص رواه أبو داود والترمذي أبو داود الترمذي ابن ماجه يا إمام أحمد الدارمي يا حديث كوريا وأكملها سيدة أقول كامل بدن سلام النقص السلام عليكم ورحمة الله سيدة أقول كامل بدن لبضس اللي يراهو السلام عليكم ورحمة الله سيدة 10 كانوا أنكسوا قادنا ورحمة الله وحاسكال لبضا دنا أديكو قبلة أجيدات وحدلات هاي السلام عليكم ورحمة الله اللي سمرك ورحمة الله هذا سوء الوجه قبلة أسوء أجيدة السلام عليكم ورحمة الله اللي لكن وحوصل صومر سينا يقرك اللي دعي هلكن ما جرت تاس وتقاليد وحس كده بعي عادة ويمانه الشرع معها وحيري ولا تصنوا لما السنية وبركاته إن لقدره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته إن لقدره سنة معها وتصنوا على السنيات تسليمة ثانية للاتباع نبي قال الراعي صلى الله عليه وسلم سلام النقص اللبادنا وسنة كان هراء وواجب لكن السلام عليكم ورحمة الله إذا اللباد وسنة والنبي قال مدى اللباد سمي جري صلى الله عليه وسلم وحكى له السنة إنه مركا قفك صلاة مركو دميو سلام النقصده هراء سنك استاغن أو أذكارتي النبي قال سنيي صلى الله عليه وسلم إنه أذكارتي آخرستو أو تصبيح دي هي تحميدك هي تكبيرك هي تهليلك ولي ماذا كبعدنا الدعيسته فرع ويصنع على سنياء يجلس إنه فرست بعد الصلاة ليأتي إنه الذي ماذا بالذكر والدعاء الواردين بعد الصلاة ذكر الدعاء دي سواء أرورا النبي كسواء أروري صلى الله عليه وسلم إنه أفرسته لأن ترك ذلك الجفوة هذه ذكر ياس وكتغو وقين أي إعراض بين العبد وربه وسيجسسو ربي وكسيجستيو ولأن الدعاء مستجاب بعد الصلاة هذا الصلاة كبعدي والدعاء وحي كمتهاي ميلاه لغو أقبله ميلاه لغو أقبل الدعاء كمتهاي وكان صلى الله عليه وسلم رسولك حاجر إذا سلم من الصلاة صلاة مركو كسلام نقصد وقال وحديه جري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه الشيخان بخاري ومسلم وريان وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري من سبح الله دبر كل صلاة 33 صلاة كاستعربت إذا قفك صدن يسدح قور تسبيح صلاة وسبحان الله إذا صدن يسدح قور وحمد الله 33 صدن يسدح قورنا الحمد لله أخرسته وكبر الله 33 صدن يسدح قورنا الله أكبر يرى وسقاشين سقال انتاسي ثم قال تمام 100 بقولك لما يسترك إذا نيرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بقولك كل ما يسترى غفرت خطاياه قففيالكيسي يدروبتيسي ولا دافا وإن كانت مثل زبد البحر بضح حنبضي إذا بها النقطة دنبقيسي ولا دافي لكن دنبق السداس أذكارتاس فضوط لغو دافايو ودنبيدي يريركاهي صغيرت أما الدنبيدي ووين وحيو باهيين توبة قونئة إن لو تجردو لو بنبحو توبة كان خالصة لكن دنبيدي يريركاها هذي كو أروران كبيرة اسكو بدلها يعني نفته هذي أروران marka aruurka waa in laga ilaaliyo kuwa yararka naftooda oo adkaartaas ilaahay uu kaaga dhaqo subhanahu wa ta'ala marka waa 33 goor oo aad akhrisanaysid subhanallah 33 goor alxamdulillah 33 goor allahu akbar aad akhrisanaysid boqolkana aad ku dhameystiraysid la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir marka salaadaha shanta ayaa la sunneeyaa in gadaashooda adkaartaas la akhristo wa kaana nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu idan sarafa min salaadiisa markuu ka baxo istaghfara 3 waxa kala sunnah markii salaada aad ka baxdo assalaamu alaykum atira intaadan tasbiixdan iyo akhrisan 3 goor inaad astaghfirullah atiraay 3 goor astaghfirullah aad leedahay xikmada loola jeedo maxay tahay salaadaad ba ka baxday intaadan dhihin subhanallah akhrisan astaghfirullah ya ka horeysa 3 goor oo nabigu uu akhrisan jiray sallallahu alayhi wasallam istighfaarta xikmada ku jirta waxay ka dhigan tahay al-khudu'
والتضرع والإنابة إلى الله إلهي يسد اللينه هو waxay ka dhigan tahay subxaanaka maa cabadnaaka xaqa cibaadatik ilaahu cibaadadaadii dhabtaa kuma aanan caabudin salaadan waa iska uun foorfoorarsaday mooye sidii aad rabtay oo dhabta ah kama soo bixin marka tawaaducay ka dhigantay bal inaan maaragtay kibro iska dhaafe ilaahu anaa kuu soo hoyanaayo dembi aanan keenin waayo midda khushuuc la'aanteyda iyo gefka salaada dhexdeeda aan ku sameeyey marka waa min baabi tawaaduc wey astakfirullahda aad leedahay وقال وxuu dhihi jiray نبga صلى الله عليه وسلم اللهمa أنت السلام ومنka السلام تبaaركta ya ذا الجلال والإكرام رواهma مسلم labadoodaba waxaa wariyey imaam مسلم صحيixiis وسuئiلa النبي نabiga waxaa la weydiiyey صلى الله عليه وسلم أي الدuعاaءi أسمع duعada yaa ilaahay ugu aqbalid badan yahy duعada yaa ilaahay ugu aqbalid badan yahy أي أقرب إلى الإجاabة duعada yaa ugu dhowaansho badan أqبلka qaala wuxuu rasuulku صلى الله عليه وسلم jawف leyli habeenka bartamihiisa saq dhexe aad ducada aad ducaysanaysid ducadaas ilaahay subxaanaه watacaala u aqbalaa wa duburu salawaat almaktuubaat iyo salaadaha la farad yeelay ciribtooda salaadaha markii la farad yeelo shanta salaadood kabacdi inaad ducaysato oo hadday jamaaco yihiin jamaacadana ay wada ducaystaan waxyaalaha ilaahay uu